waxaa loola yaaba ah waxaa loola yaaba ah maanta waaqiceennu meeshuu marayo wuxuu waaqiceennu marayaa in maskaxdeennii ay xiran tahay nin baa heesaya wuxuu leeyahay ma ogtahay curyaankaba cagalooma waayine caynkaa waxa loo yidhi kuwa cararayee ladan inay ku cibro qaataan waxaa leeyahay mujrim waa fanaan mujrimah hadda kelimaadkuu ku hadlayaa waa xaq kelimaadkii baa la qurxiyey waa la macaaniyey laxan iyo darab macaan baa la saaray dhegtu ay u bogoyso dadka laxanka macaan iyo muusiga macaan iyo codka macaan dhagahooda dadka u dhibayo waa dadka ixsaasku ka dhintay waxaan ku qoslaa imaam alghazali markuu arrintaa ka hadlayo fi kitaabi ixyaa culuum uddiin hadalladiisa waxaa ka mid ah uu soo raray wuxuu leeyahay man lam yu'athirhu alrabiicu wa azhaaruh qofka aysan saamayn guga iyo ubaxyadiisa walcuudu wa awtaaruh iyo cuudka ama muusiga iyo laxankiisa fa huwa sayi'u lmisaaj maa lahu min cilaaj qof dabeecaddii ka dhimatay oon daawo lahayn wey qof dabeecaddii ka dhimatay waxba aan macaansanayn waa qof xalwad afka loo geliyey oo yidhi waa kharaar tahay qofka hadalka macaan iyo gabayga macaan iyo codka macaan iyo muusiga macaan qofka ay dhibayso waxaa laga yaabaa qofkaas inuu dhegaysto muxaadaro maxay odhanaysaa muxaadaradaas waxay leedahay muslimiinta laaya kuwa dowladda la shaqeeya laaya ninkii niis qarxiya 72 xuruur caynuu leeyahay muxaadarada kadibka oo beenta wuxuu u yaqaana macruuf ninkaas ama gabadhaas jacaylka ka sheekaynaysa ama wadaniyadda ka sheekaynaysa allaaweyn ku heesaysa allaaweyn ninkii aaminaa awood leh ku hees munkar buu u yaqaanaa damiirku markuu kaa dhinto nin baa waxaa la weydiiyey ma huwa alkhudlaan tawfiiq xumadu maxay tahay wuxuu yihi tawfiiq xumadu waxa weeye an yastaxsina alinsaanu alqabiix wayastaqbix alxasan qofku inuu waxa fiicanna la xumaadaan waxa xunna la fiicnaadaan wadaadkaa muxaadaraynaya oo nacaybka sheegaya oo isqarxinta sheegaya oo xumaanta ka hadlaya oo nebigiiba injirle ku muxaadaraynaya oo nebigiiba qoshoqobku ku muxaadaraynaya qofkay la macaan tahay gabadhaa jacaylka ka sheekaynaysa iyo middaa wadaniyadda qaadaysa iyo laxankaas macaana uu la foolxun yahay qof damiirkiisi dhintay wey qof dhintay wax aad u qaban karta ma leh ilaahay subxaanahu watacaala baa damaa'irteeda nooleeyey aw man kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi ظulumaat mugdigaas iyo nacaybkaas iyo caradaas iyo walwalkaa qof ku jira oo wax kastoo fiican ay la xun yihiin waxa xunna ay la fiican yihiin arrintaas maaha culamaa lislaam assamaac in la dhagaysto waxa weeye ragga ka hadlay heesaha dhagaysigooda iyo laxanka dhagaysigiisa iyo macaasifta iyo dufka inaysan xaaraam ahayn imaamu shawkani baa ka mid ah saaxibu tafsiir fatxulqadiir kitaab dhan ayuu ka alifay oo uu ku beeninayo yani ibtaalu inay ijmaac tahay lama dhagaysan kara heesaha iyo macaasifta waa xaaraan inay ijmaac tahay inay ijmaacaas uu baatil yahay buu kitaab dhan ka alifay haddaad baarto waxaad arkaysaa inay tahay mas'alo cusub ummadaha adduunka ka mid ah oo aan suugaan lahayn oo aan dhaanto lahayn oo aan gabayo lahayn oo aan heesala adduunka ma jirto adduunka 5 qaaradood kama jirto min maka almukarama ilaa aakhir dunya meelay ka jirta lama arko meel walba heestii qaranka iyo heestii calanka iyo muusikii qaranka iyo muusikii calanka iyo meel walba dadkoo dhan baa waashay wadaadkaa murugaysan baa saxsan maaha saas maaha islaamku wax uusan xarimin oo daliil cad oo diiniya aan loo hayn in la xarimaa ma banaana hadalkayga marka waxaan ku gunaanadayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintan wuxuu ka soo jeediyey aayad cad qul waxaa ku tiraahdaa man xarama yaa xaaraantinimeeyey ziinat allah quruxdii alle
التي أخرج العباد نبا وحورن كرا أو مهاسها إيا لحنك إيا موسيقى إيا جبيغا إيا هوياليدا إيا برامبوركا إيا تشيفتدا باقروحة نعم بل waxay tamid tahay waxyaalo u cajiibka badan waxa la yiraahdaa waxa tartamay insaanka tabiicada waxay ku tartameen alwaan midab insaanku tabiicada waa ka qurux badnaan waay waxay ku tartameen annuuma jilicsanaan uu ka qurux badnaan waay insaanku meeshuu tabiicada kaga sareeyo waxa weeye al-angham wal aswat al-hasana sababtu ah tabiicadu waxa ka soo baxa ama shimbiraha ama geedaha ama khariirul miyah biyaha shalaalaadka ka daadanaya cod go'an baa ka soo baxa oo hal nooc ah bini aadamku wuxuu samaystay cod macaan oo intaasoo nooc ah oo nabi ammaanka lagu qaado oo khayrka lagu qaado oo yani waxa weeye intaajka lagu ziyaadiyo oo dagaalka lagu galo waxa cajiib ah hadda qoor baa waxay soo martay قصة أن جعلها إن أد إلى دقيقتان وأربنا هذه قصة جنانه مدرسة أيام معلم كأها مدرسة داس معلم والبا وحال قاده نشيد عربية الله غايتنا ورسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا قصيدتي بان سوماليي عربي أهيد وحنا كما تشرين وحنا كما درين دانت أينو لينهاي ودائما إلهي طريقي رسولكنا دوغي نويان دروستي قرآنكنا دستورك نويان درستي جهادكنا ودي يرجرونا دين تقولي مننا ونضر بدينا أفرسوا الله غايتنا دانت أينو لينهاي ودائما إلهي إريب وليه أرضنا مرتقى هذا حي قادان الله غايتنا ورسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا خاصي قادان أرضي بان صحة فتسيي دابور كبي مادين وحي بلادين أيضا الصومالي قادان دانت أين لنا ودائما إلى طريق رسولكنا دوغنا وي دروستي قرآنكنا دستور كنا وي درتي جهادكنا ودي أرجرونا دين تون ودمنا وندور بدينا هذا عي وح الله وحي وذات شغل صوت عي وروح محمود تركا وما هستبادلك مش خيرس هستبادلك ورما هاس بادله نشيدتي عربي عيد بان السوماليي بان ويلا شبري ايدي اي فهميان او واسقيلنيان بقاديا ماي مصيبتي كدعدي شقديدي بان ku waayay iskoolkii baa la iga cirshay balaayo dhan baa ka dhacday qof bini aadana oo markuu nashiid carabi qaadayo u fiirso leeyahay waa sax markuu afkiisa hooyo ku heesanay waa baadil ورنشيد إيه هاس واسكمد وتراب يعيد وتراب يعيد وياد بقى أنت تجي شيخ وتش على قبر يسوع وصامر صدي عيد نبى والعيد استتر وجهي خاغت تصمي عيد هذه هو تراب هذا العيد يا تراب وصومالي عربي وفرق يا مالي عقلكم مركو فرصده ساسا دعيسا إسلامكو فنك محاران تنمين هاست اللجو هاس يا هدي هاس قلدنتهاي oo fuxsha tilmaamaysa waxay la mid tahay muxaadarada nacaybkiiyo dilka tilmaamaysa labadaba waa xaraan heesta jacaylka iyo nabadda iyo wadaniyadda iyo muxaadarada jacaylka iyo midnimada iyo walaaltinimada labadaba waa xalaal waxa kala soocaya waxa la garaacayna maaha waxa lagu qurxiyayna maaha naqamka iyo laxanka la saarina maaha waxa kala saaraya xalaasha iyo xaraanta waa xumaanta iyo samaanta sida cidii daliil u haysa oo kitaabka alle iyo sunnaha nabiga ka haysa faltaati la timaad jawaabteeda aanu siinayna annagu waxaan leenahay hadalka qurxoon heesta qurxoon muxaadarada qurxoon gabayga qurxoon oo ummadda midaynaya kulligood waa sax marka durbaan iyo muusig lagu macaaniyana waa macaankii oo sii bato waxba lama hadlayn heesta foosha xun gabayga qabiilka tilmaamaya muxaadarada dilka ku baaqaysa kulli waa xaaraan hala joojiyo
wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.